madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa Muqdisho ku yimid socdaalkan uu ku furayay dhismaha safaaradda Turkiga ee Soomaaliya oo uu ku sheegay inay tahay dhismaha ugu ballaaran ee Turkiga safaarad ahaan uga dhista adduunka. Ya Allah, bismillah. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshiyaha Muqdisho uu yimid markii saddexaad waxaana uu bogaadiyay horumarka Soomaaliya hadda ay sameynayso. inta kadib waxa labada dawladood ay kala saxiixdeen heshiisyo la xiriiray dhinacyada amniga, waxbarashada, dhaqaalaha, maalgashiga, xoolaha, beeraha iyo warbaahinta oo iskaashi laga sameynayo. waxaana siixay wasiirada dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga. labada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Rajab Tayyip Erdogan ayaa jeediyay khudbado dhammaan xaaladaha wadanka Soomaaliya la xiriiray. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhigiisa dalka Turkiga uga mahadceliyay taageerada isaga iyo dadkiisa ay siinayaan Soomaaliya. waxaana uu uga warbixiyay isbeddelka dhinaca horumarka ee Soomaaliya hadda ay sameynayso. taariikh weyn ay noo tahay dadka reer Turkiga markaan baahnayn oo dhibaatada baahida ay jirtana waa nala joogeen. markii aan soo kabanaynay oo aan inaan dhaqaaqno wax qabsano aan rabnayna waa nala joogeen. maanta oo dalkii oo u socdo in dimuqraadiyadda xaggeeda u dhaqaaqo oo doorashooyin ay dhacayaan muddo maalmo naga xigtana way nala joogaan. intaasoo dhan waxay daliil u tahay sida dawladda iyo shacabka Turkiga iyo hoggaankaada adiga ay ugu committed ugu yihiin ama ay ugu istaageen in ay Soomaaliya ay lugeeda ku istaagto ay kaalmeeyaan. heshiisyada maanta halkaan lagu saxiixay dhismaha safaaraddan weyn oo nooceedo kala ah tii ugu weyneeda Turkiga caalamka ku leeyihiin ah mashaariicda saacadan aan taaganahay meelo badan ee madaxda Soomaaliya ee Turkiga ay ka furayaan kuwa soo socdo ee wadada ku soo jira intaba waxay daliil u yihiin mudane madaxweyne sida Turkiga ay Soomaaliya u garab taagan tahay arintaas oo aan aad iyo aad uga mahad celinayno. dawladda Soomaaliyana waxay ku guuleysatay dalka inay ka dhigto meel la imaan karo, la kaalmeyn karo, maalgashi lagu sameyn karo ayadoo ay waliba dhinacaas maalgashiga oo bilowga ana shirkadaha Turkiga ay yihiin kuwii ugu horreeyay ee dalka yimiday ee dhaqaalahooda keenay maxaan ku raada qatar kastoo jirta dalkan u bareeray ma ahayn kaliya maslaxadoon iyo faa'iidadoon waxay ahayday garab istaag walaalnimo ay ahayd taas lafteeda. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu cambaareeyay weerarkii habeen ka hor ka dhacay Muqdisho waxaana uu sheegay in Soomaaliya mar kale uu imaan doono si mashaariic kale oo hadda dhismoodu u socdo uu u daafuro. mashaariic horle ayuu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay ka bilaabayso Turkiga sida shaqo abuurka dhalinyarada, tababarka ciidamada Soomaaliya oo uu sheegay inay Soomaaliya ka dhisayaan xero weyn oo ciidan oo lagu tababaro ciidamada dawladda Soomaaliya. waxa uu intaa ku daray in Turkiga uu bisha Ramadaan gudaheeda u soo dirayo wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Somaliland iyo Puntland maraakiib mucaawina oo loogu talagalay dadka abaarta ay ku saameysay deegaanadaasi. Açılış esnasında ifade ettiğim gibi Mogadishu Büyükelçilik Külliyemiz Türkiye'nin dünyadaki en büyük elçilik külliyesidir. sidaan xafladii furitaankaba aan ku sheegay safaaradda Turkiga oo halkan ku taalo waxay ugu weyn tahay safaaradaha Turkiga ee adduunyada ku leedahay. Şunu da burada söylemek durumundayım. Etiyopya ile Puntland ve Somaliland'da kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. waxaa kaloo la socotiin annaga Ethiopia iyo maaragtay Somaliland iyo Puntland goboladaas in maaragta dad badan oo dhibaato oo abaareed haysata ay ka jiraan. Bu çerçevede yine Türk Kızılayı aracılığıyla ayrı bir gemiyle bu bölgelere de gıda malzemesini Ramazan ayı içerisinde göndermiş olacağız. bisha Ramadaan gudaheeda haddii Ilaahay yiraahdo waxaan u soo diri doonaa markab iyaga loogu talagalay goboladaas in abaarahooda wax looga qabto. waxa uu dadka Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida ay Soomaaliya ugu soo dhaweeyeen isagii wafdigiisa oo ka koobnaa wasiirro, xildhibaano, ganacsato, aqoon-yahano iyo saraakiil ciidan markii saddexaad taasi oo uu sheegay in muujinayso isu soo dhawaanshiyaha walaaltinimo ee xagga diinta la xiriira. inkastoo madaxweynaha Turkiga uu maanta yimid Muqdisho haddana magaalada caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaa laga dareemay culays dhinaca isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Muqdisho. waa markii saddexaad ee madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu booqasho caalami ah ku yimaado Soomaaliya markanna waxay uga dhigan tahay markiisii labaad isagoo ah madaxweyne. 2011 ayuu Soomaaliya yimid xilli abaare ay ka jireen isagoo dalkiisa ra'iisul wasaare ka ahaa.
cabdinaasir maxamed cali telefishinka Home Cable magaalada Muqdisho.